maalin maalmaha ka mid ah nin ayaa wuxuu fadhiistay haween badda agteeda. Intaysan qoraxdu soo bixin ka hor wuxuu helay jawaan ay ka buuxaan dhagaxaan. Gacanta ayuu geliyey, hal dhagax ayuu kala soo baxay, badda ayuuna ku tuuray. Wuxuu ka helay dhabaqa dhagaxa uu samaynayo marka biyaha lagu tuuro. Mar labaad ayuu soo qaatay dhagaxii, badda ayuuna ku tuuray. Wuxuuna moodayay inuu dhagaxyo ku tuurayo badda, maxaa yeelay dhabaqa dhagaxaanta markii uu biyaha ku dhacayay way farxad gelinaysay ninkan. Waxaana soo dhawaatay iftiinka qoraxda. Wuxuuna bilaabay in uu ogaado jawaanka agtiisa yaala waxa ku jiro, ilaa uu jawaankii ku haray hal dhagax. Qoraxdiina way soo baxday. Ninkii wuxuu fiiriyey dhagaxa, wuxuuna noqday diamond. Wuxuuna ogaaday intii uu badda ku tuurayay oo dhan inay ahaayeen diamond oo aysan ahayn dhagaxaan. Ninkii wuxuu bilaabay in uu ka shaleeyo isagoo fiirinayo diamondka oo leh, shalaytadayday, sidee ayaan diamond dhagax ugu maleeyay? Wallahi haddaan ogaan lahaa qiimaheeda ma iska tuuri lahayn. Aad baan ooga xumahay. Dhammaanteen waxaan nahay ninkan. Jawaankii diamondka waa cimriga, kaasoon ku luminayno saacadba saacad micno daro. Dhawaqii biyaha waa ku raaxaysiga nolosha iyo rabitaanka. Habeenka mugdigiisa waa u fiirsasho la'aanta aan ku noolnahay. Soo bixitaanka qoraxdu waa nolosha dhabta ah. Sidoo kale geerida ma lahan soo naqasho. Ugu dambeyn, hadda laga bilaabo feejignow, hana ku dayacin waqtigaaga macno daro. Waad ka shalayn doontaa mar aan shalayto wax taraynin.